Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal mar kale. Magacaygu waa Injineer Ismaaciil Maxamed. Insha Allah waxaan bilaabi doonaa course ku saabsan Windows 11. Course-kan wuxuu noqon doonaa mid taxane ah. Insha Allah. Course-kani waxaan ku qaadan doonaa Windows 11 guud ahaan qaabka loo isticmaalo. Insha Allah anagoo step by step u baran doono wax walba oo ku saabsan Windows 11. ugu horeyn casharkeena haddii aan guda galno, waa maxay Windows marka ugu horeyso. Windowsku waa nidaam ay ku howlgalaan kombiyuutarada sida aan wada naqaano. Waxaa soo saara shirkad la yiraahdo Microsoft. Sidoo kale shirkadda Apple-na waxay leedahay iyadana mid la mid ah Windows oo la yiraahdo OS. Guud ahaan Windowsku horta waa operating system. Waa operating system-ka ugu weyn oo ay ku shaqeeyaan kombiyuutarada. Marka la soo koobo Windowsku waa nidaamka ay ku howlgalaan kombiyuutarada, kaasoo ka dhigaya kombiyuutarkaaga mid aad isticmaali kartid. Waana software ku saamaxaya inaad kombiyuutarkaaga si caadi ah u isticmaasho. Haddii kombiyuutarkaaga uusan Windows lahayn, wax kuu suurtagelaya ma lahan oo wax waa qolof qalalan waaye. Haddii aan si kooban taariikhda Windowska uu leeyahay ugu laabano, Windowska ugu dambeeyay ee soo saartay shirkadda Microsoft waa Windows 11. Waxayna soo saartay sanadii 2021. Waxaa ka horeeyay Windows la yiraahdo Windows 10, kaasoo ayadana ay soo saartay 2015. Sidoo kale waxaa ka horeeyay Windows 8, Windows 7. Windows ugu horeeyay ee soo saartay shirkadda Microsoft wuxuu ahaa Windows 1 oo ay soo saartay sanadii 1985. Waxaa ku xigay Windows 3.1, Windows 95. Intaasoo window waxaa soo saaray shirkadda Microsoft. Mid walbana wax gooni ayay ka bedeleysay ama update gooni ayay ku soo kordhinaysay. Hadda caalamka la joogo 2026 Windowska ugu badan ee la isticmaalo waa Windows 11. Insha Allah course-keena waxaan ku qaadan doonaa waxyaabaha uga duwan yahay Windows 11ku Windowsada ka horeeyay sida 10 iyo 8. Haddii aan isla aragno waxa uu yahay Windows 11, horta waa operating system la mid ah kuwii hore sida Windows 10, Windows 8 iyo kuwii ka horeeyay. Windows 11ka ama Windows 11ka shirkadda Microsoft waxay soo saartay October 2021. Waxyaabaha uga duwan yahay Windows 11ka Windowsada ka horeeyay haddaan wax mid ka taabano, waxa ugu horeeya oo aad arki kartaa wejiga ugu horeeya Windows 11ku iyo Windows 11 iyo Windows 10 isku mid ma ahan. Windows waxaa jira button la yiraahdo starting menu oo ah button-kan hoos kaga soo muuqanayo. Dabcan Windows 10ku waxa uu ku lahay geeska corner-ka ah ee leftiga ah, halka Windows 11ku uu dhaxda ku leeyahay. Muuqaalka guudna waa ay ku kala duwan yihiin oo waxaa wax badan yacni horumarin iyo ay ka muuqataa Windows 11ka sida taskbar-ka oo kale dib loo casriyeeyay oo qaab qurux badan loo diyaariyay Windows 11ka. Insha Allah course-kana wuxuu noqon doonaa mid taxane ah. Casharkeena caawa haddii aan si kooban ugu laabano, Windowsku taariikho kala duwan ayuu leeyahay oo ah Windows sida Windowska ugu dambeeyay oo ah Windows 11, Windows ka horeeyay Windows 10 ahay, Windows 8. waxaasoo Windows iyo waxa ay ku kala duwan yihiin Windows 11ka. Insha Allah waxaan is arki doonaa course-keena gudihiisa ayaan ku arki doonaa. Course-keenana insha Allah waxay noqon doonaa sidaan hore u sheegnay course taxane ah. Insha Allah waxaan ka diyaari doonaa insha Allah 20 cashir oo aan habeen walba hal cashir soo geli doono hadduu Alla raali ka ahado. Soo dhawaada saaxiibayaal. Dabcan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir. Insha Allah waxaan rajeynayaa insha Allah inaan wax badan kala faa'iidi doono hadduu Alla raali ka ahado. Magacayguna waa Injineer Ismaaciil Maxamed. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.